Garyaqaan Xasan Cabdilaahi Cawaale oo ah qareenka u doodaya siyaasi Maxamuud Cali Salebaan Ramaax ayaa laga hor istaagay inuu ku booqdo xarunta CID oo siyaasigani ku xidhan yahay. Garyaqaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saraakiisha xarunta CID ay u diideen inuu booqdo, isagoo sidoo kalena Xuseen xataa loo diiday inay soo booqdaan dadkii qaraabadiisa ahaa. Garyaqaan Xasan Cabdilaahi Cawaale ayaa waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay in hay'adaha ammaanku ixtiraami waayaan sharciga iyo xuquuqda maxaabiista, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. Xasan Cabdilaahi Cawaale Garyaqaan Xasan Cawaale isku day saaka waxa isku day ku booqdo xarunta CID-da siyaasiga xiran siyaasi Ramaax runtii waxaan si daraan aad uga xumahay saraakiishii kula kulmay xarunta CID-du waxay ii diideen ama iga hor joogsadeen inaan la kulmo oo ku booqdo maxbuuskaas xiran siyaasiga ah anigoo ah qareenkiisii inaan la kulmo oo iga hor joogsadeen runtii aad baan uga xumahay in qofka maxbuuska xorriyadiisa laga qaaday uu la kulmo qareenkiisa iyo dadka ehelkiisa waa xorriyad aasaasiya uu leeyahay qof kasta oo muwaadina oo xorriyadiisa laga qaaday. aad baan runtii uga xumahay inaan ixtiraamin hay'adaha dawladdu iyo booliisku sharciga iyo dastuurkii xuquuqdii dadka maxaabiista ay leeyihiin aan ixtiraamin oo ka mid yahay ninka aan qareenka u ahaa inaan isku dayay saakin la kulmo laakiin isdor hayga hor joogsadeen oo ay diideen. waxaa kaloo runtii nasiib darro ah oo iyaguna goobta taagnaa dadkii ehelka ahaa iyo asxaabta ahaa ee maxbuuskaas xiran oo iyaguna dhammaantood laga hor joogsaday oo loo diiday inay la kulmaan xubintaa ka mid ah qoyskooda iyo asxaabtooda ee xorriyadda laga qaaday. aad baan runtii uga xumahay. waxaan u arkaa inay tahay ku tumasho sharci iyo dastuurkii oon la ixtiraamin. qofka xorriyaddiisa waa laga qaadi karaa for example haddii loo maro hab sharci wuxuu leeyahay isla marka xorriyadda laga qaado wuxuu dastuurku siinayaa xuquuqo aasaasiya oo ay tahay inay booliiska iyo cidda gacanta ku haysta maxbuuskaasi ixtiraamaan. taa haddii aanay la helin macnaheedu waxa weeyaan in xuquuqdii ay lahaayeen dadka maxaabiista ahi aanay hay'adaha baadhistu iyo booliisku aanay gebi ahaanba ixtiraamin, dastuurkiina ay ku tunteen. taa macnaheedu waxay noqonaysaa inaan qofka maxbuuska cadaalad helayn, xorriyad ka qaadista laga qaado xorriyadduna ay noqoto mid aargoosiya. siyaasi Ramaax ayaa maalinnimadii shalay xukuumaddu xabsiga dhigtay, taasoo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cidna uu ku tilmaamay tallaabo aan sharciga waafaqsanayn. waa Maxamed Andar, Badda Cas 24, magaalada Hargeysa.